waxaa jiro seed oo wadanka nagu lahaa oo domestic ama wadanka uu gudihiisa laga isticmaali jiray oo inta badan u badnaay cereals waxaa la sheegaa ama maqlay oo war ugu soo gaaray in inta badan galeeydiyo kale ay wax kale ku darsameen oo dib soo gaaray sidoo kale masagidii sidaas daraadeed ay sababtay inay cudurradii u adkeysan waayaan dadkiina ay beerashadii iska dhaafeen sidaas daraadeed maadaama wax badan ay soo gudbeen sidaas daraadeed ay noqotay in aan cerealskii iyo digirihii iyo wixii dhamaaba aan dibadda ka kaasho oo nooga imaadaan hadda ma jiraan meelo waxaas ka intaas laga helay Abdullahi aad u mahadsan tahay inta aniga aan ka warhayo anaga ka warhayno jiilkeena dambe beeraha xogta aan iska hayno oo xogta aan hayno aad u yar tahay marka laga hadlo anaanka seedka ama iniinta waxaa jirto in dawladdii dhexe militariga dalka soo martay madaxweynaha ka Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariistay in ay tilaabo qaaday tilaabtaasna tilaab ka horeysana ayna jirin tilaab ka dambeysana ayna jirin dawladdaas aad u dadaashay wax badan ay wadanka ay maaragtay ay soo kabtay oo ilaa hadda lagu intifaaca waxaa kamid ah galeeydan hadda oo ilaa hadda la isticmaalo oo somtagistka la yiraahdo waxaa la dhihi karaa galeeydaas hadda sheegtay faraa'idkeedii oo lagu soo saaray afgooy xaruntii cilmi baarista afgooy ee Karis lagu soo saaray oo ay ka timid galeey Soomaaliya ka bixi jirto yareereed oo land race oo afgooy composite magacaasna waa lagu sheegaa galeeydaas oo dalka xilli hore soo gashay oo yareereed oo production-keedana oo yaraa xogaa gaabnaa laakiin drought tolerance lahayd ama abaaraha u dulqaadi kartay awoodeeda lahayd in galeey loo baahday in production-keeda la badiyo saas darteed in lagu maaragtay faxliyay galeey laga keenay Tanzania oo Toxban la yiraahdo marka Toxbanti iyo tii Soomaaliya marka la isku dhuftay magacaas waxa ka soo baxay Somtax galeeydaas sidoo kale waxa jira Filson variety oo digiraha nooc kamid ah oo ay soo saartay dawladdii xilliga ay jirtay dawladda gacanka sidoo kale waxa jirta masaga iyadana research ku socday oo maaragtay iyadoo research ku socday liiri dawladda burburtay marka masgadana waa la sheegay in laga soo saaray Baydhabo Bongaay xarunta la dhigi jiray iyada iyo Filson variety-ga oo marka dadaal ay dawladda sameysay kadib wax kale dadaal kale geliyay oo verification ku sameeyay waxa la sheegaa SAG ama hay'adan oo Filson in ayadana xogaa ay dadaashay wax ay isku dadayday sidoo kale jaamacadda Zamzam ay wax isku dadayday marka waxa loo baahan yahay in mechanism iyo awood lahayn in la isugu geeyo xilliga hore dawladda Soomaaliya ay jirtay waxa muddo hadda in ka maartay wax badan hadda dadku oo ka maartay way aragsan yahay kana maartay oo dhaqaale iyo wacyi intaba uu ka sareeyay laakiin waxa muddo in tawfiiqda aad u yaraatay oo awood marka la isku keenay awood noqota in awoodda kala baasta marka dadka ganacsatada iyo in la isku keeno iyo dhamaan si dalka loo maalgeliyo in la maalgeliyo la baahi bixiyana marka hore waa in seed ama iniinta la hormariyo waxaa jirto seed ay soo saaraan wadamada adduunka oo abaaraha ugu talagaleen waxaa jiro saad ka warqabtaan isbedelka cimilada jiro climate change waxa sababa in cimiladii ay kor u kacdo oo hal dhibic la sheego 1.5 meelaha qaar ku darsameen kuleelkii la arki jiray sanadlaha ahaa marka saas sida cunnada marka adduunka loo maaragtay sustainable looga dhigo ama loo joogteeyo waxa la isku dayay in la soo saaro abuuro oo dul qaadan karo abaaraha sida maaragtay bariiska genetic modification qaar lagu sameeyay qaar hybridization lagu sameeyay bariiska haduu aaladay qamadiga aalayd marka horumar saa'id ah adduunka sameeyana horukac saa'id ah 30 sano anaga burbur ku jirnay marka hadda waxa loo baahan yahay in dadka aqoon-yahanada iyo dadka dhaqaalaha iyo dadka beeraha bartay inay isku tagaan wadanka u soo saaraan seed sidoo kale dawladda ay gacan ka siiso wasaaradda beeraha ay maaragtay wasaaradda beeraha maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe iska kaashadaan ganacsatada in lagu dadaalo sidii loo heli lahaa awood in la suuq geeyo loo heli lahaa abuur
cimilada la jaan qaadi karo in la isku dayo xooggan la saaro abuurka cerealka ama qaybta maaragtay raashinka sida bariiska qamadiga galleyda in la soo saaro cunno wadanka uu ku tiirsan yahay oo sida galleyda oo kale hadda inoo noqon karto cunno wadanka uu ku tiirsan yahay lagu baahi bixi karo oo ilaa keed wadanka u geli karto marka galleyda ayaa waxa la dhihi karaa waa perfect candidate ama midda ugu horeyso cunnada markii la tiriyo cereal crops-ka musharaxiinteeda masagada jirto waxa la sameyn karaa oo kale waanbaha oo kale waanbaha iyo kaleera qamadiga oo kale waa la sameyn karaa in maaragtay la abuuro oo sida anaga burka sida baan isticmaalnaa in qamadi la abuuro wadanka lagu tijaabi karo cimiladana cimilo ka kulul lagu beeraa marka in xarumaha researchka oo tropicalka adduunka waxa wax ka dooni karo dawlado iyo hay'adaha caalamiga in marka dawladda iyo hay'adaha caalamiga iska kaashadaan iyo ganacsatada in la doono abuur wadanka kan wadanka yaa la hormariyo mid kale dheeri la keeni kara la keeno dadku waa batay marka waa in aqoon-yahanada ganacsatada dawladda waxaan iskaashadaan waa in beeraha loo laabto cunnada wadanka laga maaragtay wadanka xagga cunnada in laga hormariyo wadan cunnada dibadda ka soo iibsado oo qarashka uu hayo dhan dibadda u diro soo ku hormaro aad u adagta si maaragtay wadanka qarashka faraha badan ee dibadda naga aado waxa la dhihi karaa waxa waaye maalinta qofka Soomaaliga wuxuu xiran yahay iyo wuxuu maaragtay ama qurux u isticmaalo ama hoygu ku jiro total waxa la dhihi karaa boqolkiiba 90 waa wax dibadda laga keeno marka cunnada way ka khatar badan tahay intaas oo adduunka hadii oo ka dhaco lockdown haduu ka dhaco adduunka in anaanka cunnada wadanka uu khatar galay marka in xagga cunnada sida galleyda oo kale qasabka oo kale sokorta laga qasabka oo kale cimilada ugu fiican qasabka ugu baxaynaa qasabka iyo galleyda labadaas iyo qamadiga waanbaha xoog laftiisa bura laga dhigaa xoog laftiisa bura laga sameeyaa kadib asigaas la tala soo hormar wadamada qaar bariiska si sameeyaan iyo baasto laga sameeyaa in annaga wadan 3 bil kaliya qorax haysto ee wax beerto wuxuu beerto wana noo soo dhoofiyaa wixii isticmaali lahaa wixii ka bato anaga noo soo dhoofiyaa oo anaga suuqadeena ku haleeya marka in la xadido soo waxyaabaha dekedaha ka soo galo iyo meelaha wadanka laga soo galo in la xadido waxyaabaha raashin ka soo galay si dalkina marka hore la taageero wax soo saarka wadanka marka la taageero in banaanka la xadido marka taas marka la yiraahdo aan kula tali lahaa dadka